Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada janaalka Barca 252. Mowduuceena saaki waxaan kusoo qaadan doonaa guushii xalay Barcelona ee ka gaartay kooxda Real Madrid iyo goolasha xidigaha Barcelona u dhaliyeen. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa 5 gool iyo gool ku garaacday kooxda Real Madrid. Goolasha Barcelona waxaa u dhaliyeen Salah Manjed oo 2 daqiiqo ciyaarta hal iyo eber ka dhigay. Kadib 15 daqiiqo Real Madrid ayaa ciyaarta barbara ka dhigtay. Kiko ayaa u dhaliyay ciyaarta markay mareysay 29 daqiiqo. Arturo Vidal ayaa 2-1 ka dhigay ciyaarta 34 daqiiqo markii ciyaarta ay mareysay. Messi laadka xorta ka dhaliyay kooxda Real Madrid. Halftime markii la aaday la isku soo laabtay 75 daqiiqo. Messi ciyaarta 4-1 ka dhigay. Luis Suarez ayaa soo xiray goolasha kooxda kubadda cagta Barcelona 77 daqiiqo ayuu ka dhigay ciyaarta 5 gool iyo gool. Dambeyntii kooxda kubadda cagta Barcelona 5 gool iyo gool ku badisay. Barcelona dhibcaha hoggaanka hadda horyaalka wuxuu ku haysaa 22 dhibcood. Kaalinta labaad waxaa ku jirto kooxda Granada oo leh 20 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirto kooxda Atletico Madrid oo leh 20 dhibcood. Kaalinta afraad waxaa ku jirto Real Sociedad oo leh 19 dhibcood. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jirto kooxda Sevilla oo leh 19 dhibcood. Kaalinta lixaad waxaa ku jirto kooxda Real Madrid oo leh 18 dhibcood. Xaqiiqooyinkii laga bartay kulankii xalay 2 iskoor oo dhigay Messi leeyahay. Messi ayaa dhaliyay goolkiisii 50aad ee laadka xorta xirfadiisa kubadda cagta 44 gool. Goolasha laadka xorta wuxuu dhaliyay kooxda Barcelona 6 gool leh. Laadka xortana wuxuu dhaliyay xulka Argentina. Goolasha laadka xorta ee la dhaliyay 5 xilli ciyaareed la soo dhaafay. Messi 20 free kick, Juventus 15 free kick, AS Roma 13 free kick, PSG 13 free kick, Lyon 13 free kick. Janaalka Barca 252 fadlan rukuma janaalka haddaa ku cusub tahay. Intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.